Lionel Messi ayaa la rumaysan yahay inuu ku dhow yahay inuu la sii joogi doono kooxda Paris Saint-Germain inkastoo ay jiraan warar sheegaya in Sacuudiga ay u soo bandhigeen lacag aad u badan. Ninka muddada dheer ay xifaaltamayeen Messi ee Cristiano Ronaldo ayaa hore u dhammaystiray u dhaqaaqista gobolka Khaliijka isaga oo ku biiray kooxda Al Nassr heshiis loo maleynayo inuu 173 milyan oo gini sanadkiiba ku qaadanayo xiddiga reer Portugal. 37 jirkan ayaa ku adkaystay in shaqadiisa Yurub ay dhamaatay isagoo ka tagay Manchester United bishii November ka hor inta uusan u wareegin Saudi Pro League. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Messi way ka duwan tahay. Laacibka ku guuleystay koobka adduunka ayaa xilli ciyaareedkii labaad oo miro dhal ah la qaadanaya Paris Saint-Germain kadib markii uu ku guuleystay horyaalka Ligue 1 sanadkiisii ugu horeeyay ee Faransa. Hogaamiyaasha horyaalka ayaa weli doonaya inay ku sii hayaan Paris. Sida laga soo xigtay BBC Sport, dalab rasmi ah oo ka yimid Al Hilal ayaan weli soo gaarin. Daabacadda ayaa sidoo kale sheegaysa in wadahadallo u dhexeeya Messi iyo PSG la filayo toddobaadyada soo socda. Intii uu socday koobka adduunka, madaxweynaha PSG Nasser Al Khalifi ayaa xaqiijiyay in ciyaaryahanka iyo kooxdu heshiis ku gaareen inay wada hadlaan kadib markii uu tartanku dhammaado. Inkastoo taasi aysan ahayn damaanad kordhinta qandaraaska 2 sano ee bilowga ah ee Argentineska uu u saxiixay markii uu kaga soo biiray Barcelona 2021, Al Khalifi wuxuu kalsooni ku qabay inuu sii haysto halyeyga. Isagoo Messi uusan weli u saxiixin Paris Saint-Germain heshiis muddo kordhin ah, Gillian Blake oo ah khabiir ka faalooda arrimaha sportska ayaa BBC u sheegay ujeedka ciyaaryahanka in uu yahay sii joogista Yurub. Wuxuu ugu cadcad yahay inuu ku guuleystay Ballon d'Or, weli wuxuu ku jira Champions League, wuxuu leeyahay bartilmaameedyo waaweyn kadib markii uu ku guuleystay koobka adduunka. Waynu ilaalsan doonaa Messi iyo Mbappe, Al Khalifi ayaa yiri kadib markii ay labadooduba ku soo wada ciyaareen finaalkii koobka adduunka ee Qatar Lusail Stadium. Waa labada ciyaaryahan ee ugu fiican koobka adduunka. Ma doonayo inaan wax badan ka sheego Leo, waxaan leenahay heshiis aan ku wada hadlayno koobka adduunka kadib, ayuu hadalkiisii raaciyay madaxweynaha kooxda. Kadib markii la siiyay fasax dheeri ah guushii koobka adduunka kadib, Messi ayaa ku soo laabtay garoomada 11 Janaayo. Xiddigii hore ee Barcelona ayaa dhaliyay gool kulankii ay 2-0 kaga badiyeen Angers, taasoo ka dhigtay PSG inay 6 dhibcood ku qabato hogaanka horyaalka Ligue 1. Kooxda Christophe Galtier ayaa ku soo laabanaysa ciyaaraha Champions League 14 Febraayo iyagoo kaliya ku dhameystay kaalinta labaad ee groupkooda inkastoo oo aan laga badin 6 kulan oo ay ciyaareen. Waxayna fooda isdarayaan Bayern Munich iyagoo doonaya inay ka aarsadaan guuldaradii finaalkii 2020 ee Lisbon kadib markii Kingsley Coman uu dhalay goolkii guusha ee Bayern Munich.